السلام عليكم. daawadayaalada idin salaamaya mar koobaad. maalmahan waxaa aada loo hadalhayay qalab lagu sheegay inuu roobku dhaliyo. marka koobaad waxaa aada loo hadalhayay qalab lagu sheegay in waxa weeyaan ay bini aadanku gaadheen heer teknolojiyadu marayso in daruura la samayn karo, kabacdina la bacrimin karo, kabacdina waxa waaye daruura roob laga sii dayn karayo hawshaas. dad fara badan oo Soomaaliya ajaanib aad bay u sheegeen maanta waqtigan la joogo oo bisha March ay tahay 29 2020 waxaa aada loo hadalhayay ilaa shalay oo bishii 20 ahayd. waxaa aada loo hadalhayay qalab lagu rakibay qabri bayax oo laleeyahay waxaa loo adeegsanayaa roob. qalabkaas oo run ahaantii markaad aragtid aada xoogaa uun la yaabaysid minaha inuu wax weyn yahay. waxoogaa meelihii godadkii qashin qubka dhakhaatiirta aad u melinaysid, meelaha aan xarumaha caafimaadka aad u melinaysid, godadkii qashinka laga qobi jiray qiiqa kor gashayn jiray. hadda muddo hadda waa 6 iyo ama 12 iyo 13 galabnimo weeyaan maqrib wax yar ka hor. SRTV hadda muddo 30 daqiiqo laga joogo waxay soo qortay isla qalabkaas oo ilaa maanta aad baraha bulshada looga hadlayay. waxay ka qortay maxaad ka ogtahay qalabka casriga ah ee loo adeegsado xoojinta daruuraha. dunida horumartay ayaa ku tartanta aalada casriga ah si loo horumariyo bulshada. dawladda ayaana dhawaan keentay qalab casri ah oo xoojinaya marka ay daruuruhu roob ku daayaan. deegaanka Soomaalida ayaa kamid ah meelaha mashiinkan lagu rakibay. dabcan iyagu mashiin bay ku tilmaameen. haddaba si aan wax uga ogaano mashiinkan ayaan gaarnay goobo kamid ah halka lagu rakibay. Gadamu Gatnet oo axmaar baan maleynayaa waa xirfadle ku takhasusay saadaasha hawada. waxa uuna sheegay in qalabkan uusan samaynin roob ama daruuro, balse marka uu cirku rooban yahay lagu bacrimiyo si uu xoojiyo daruuraha. qalabkan casriga ah ayaa dalalka ka faa'iideysta waxaa kamid ah way qoreen Imaaraadka Carabta iyo Shiinaha. marka inta laga yimaado culimo fara badan oo ka hadlaysa arrinkan waa diideen, ka hor yimaadeen, ayada toos u beeninayna way jiraan. ballaan u dhaadhacna Soomaalida haddaba Soomaali Maxamed committee ka dhiibatay maanta halkan ballaan u dhaadhacna waxyaalaha ka qoreen faallada ka jawaab kaga bixiyeen Soomaali way gaar ahaan Soomaali galbeed dadka ku xidhan SRTV. nin lagu magacaabo Maulana Rashingi wuxuu qoray war awoodaha Ilaahay faraha yaan la iskula gelin. mucjisooyinka Allah u gaar ah weeye daruuraha iyo roobka. aqoonta xad bay leedahay yaan dambi lagu dhicin roobkii inoo curtayna. markaad qalabka rakibteen wata cadhadii Ilaahay aan si toos u aragnay jawigii roobka ayaa jawigiisa isku bedelay. waxaasina waa cadho Allah laga toobad keeno ilaa qalabkan laga qaadayo hubaal roob agteena ma yaalo hal la ogaado. ninkaas soo qoray Bashiir Cabdilaahi nin la dhashay wuxuu qoray maxaa aqoon-yahana. dabcan wuxuu u jeedaa ninkan la leeyahay waa khabiir qalabka faallada ka bixiyay magaciisa ku sheegnay Gatano. wuxuu leeyahay maxaa aqoon-yahana miskiinkan aan aroortii fuulka meelahaas ku wada cunno. wallahi deegaanku uu dambeeya axmaar kasta waxay oran khabiir takhasus u leh fadlan qoraalka ka saara. ninkaas 7 reaction buu helay oo qosol iyo like ay soo jira love walibana. nin kaloo la yiraahdo Maxamuud Cabdullaahi Maxamed wuxuu qoray ilaahay nooma keen raaco. inaha qoliyan wax qoru jeeda waxaad ka shaqeynaysaan islaamnimo iyo Soomaalinimo midna shaqo kuma laha. meel fiican baad u socoteen laakiin sorry gaariga wadada u ka baxay. nin kale oo Rashiid Aadan Maxamed kaakabo cajab deegaanka Soomaalida ma jiiriba saynis yahanada cilmiga daawada markay daawo curinayaan jiirka ay ku tijaabiyaan marka anagu masiidiiba maxaa deegaanka Oromada iyo kana xaarada loogu tijaabin waayay. dabcan qalabku ka hadlaya
waxaan u malayn nin kale wuxuu qoray gabadh la dhaho Faadimo Cabdi Naasir waxay tiri waxaan u malayn inuu hanqar ku dhici doono ilama aha daasadahan in ay roob xoojinayaan maalin dhow hanqar ayaa dhacaya ayaa la maqli gabadha waxay tiri macnaha qalabkan meesha ku rakibteen inay daasad ugu yaano inay wax xoojin lama ahane maalin dhow hanqar baa ku dhacay ayaa la maqli doonaa saas u jeedaa nin wiil kale la yiraahdo Maxamed Faarax Ismaaciil wuxuu yiri kadar oo dibidal wuxuu yiri kadar oo dibidal SRTV awalba xashiish qaad ayaa haydeen laakiin waa arrin la yaab leh oo ahayd in laga fiirsado maadaama aan nahay dad muslim ah ma haboona in la farageliyo arrimaha Allah oo gaarka ah nin kale Maxamuud Cabdullaahi Maxamed wuxuu qoray cajiib والله وياب وحا كودعي dadkii Soomaaliyeed ee deegaanka dawladda ka filanayay inay maanta halka marayso ninka loo leeyahay wariye Liibaan Cabdiqaadir Maxamed wuxuu qoray qofku haduu jaahil yahay hore waxba uma fahmo waa in lagu celceliyo si loo fahansiiyo aqoonta una garanaynin jaamacadda Jigjiga waa inay furtaa waaxda bachelor degree ee meteorology and master's degree in meteorology and PhD in meteorology sababtoo ah waa muhiim in aanu helno aqoonyahan soo bartay kuna takhasusay khibrad u leh aqoontani okay ninkaas uu taageersay ka muuqata nin kale lagu magacaabo Cali Cabdilaahi wuxuu leeyahay kolba mid xanuun qaba ha idinka waalo ileen dad bila aqoon ah waad ahaydeene طبعا ninkaas hoosta reaction buu raaciyay ninka la dhaho Maxamed Ibrahim wuxuu yiri war naga daaya cara Ilaahay aysan nagu dhicin meeshii uu Ilaahay raxmadiisu la damco daruur xoogan isaga keeniyay Ali Cabdilaahi marka uu soo noqday kolba mid xanuun qaba ha idinka waalo ileen dad bila aqoon baad haydeen waa isla qoraalka hore ku leeyahay ninka lagu magacaabo Maxamuud Cabdullaahi Maxamed wuxuu cajiib waxa